إنا لله وإنا إليه راجعون الله نحرسته وحمانته حبالها الناس هبلود بريق مقالة هرقيسة سياس قرن اللوغاسي مرحون حلبان عبد الله إبراهيم حرسي اللوغادو كمدها مدنياش أقولها قورتي دي سومالي لانو مانينتي شاليتو لكو غيريو دي قدها مقالة هرقيسة waxaana askaasi qaran ee loo sameeyay xildhibaankaasi ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo gudoomiyaasha iyo mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka ee guurtida iyo wakiilada mas'uuliyiin ka tirsan saddex xisbi qaran ee dalka wasiirka ka tirsan xukuumadda talada dalka isa salaadiin uqaaliya dad kala aad u tiro badan kuwaas oo dhamaantood ba Ilaahay uga bariyay inuu marxuumka uu janno firdawsa uu ka waraabiyo helkii qaraabadii guud ahaan shacabka Soomaaliland uu ka baxayna uu samiriyay iimaan uu ka siiyo iyagoona dhamaantoodba ka warramay shakhsiyadii marxuum xildhibaan Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dhugad oo kamid ah mudanayaasha ugu caansan golaha guurtida inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta halka waxaan u joognaa aaskii marxuum Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dhugad ninkaas wuxuu ahaa nin weyn oo qaali ah ummadda Soomaaliyeed qaali ah wuxuu halgamaa weyn geesi xubin golaha guurtida ka mid ah wuxuu ahaa oo aan garanayaa inuu halgankii door weyn ka qaatay xoreynta dalka kan qiimo weyn uu ku lahaa ummadda tan magaciisa sharaf u lahaa nin geesi ahaa oo wax walba u quura ummadda iyo dadkii ummadda uu ka dhashay u quura ayuu ahaa waxa la naxariista jirna Ilaahay ka waraabsho kulligeena samariye iimaan Allah naga wadsiiyo Ibraahim Xirsi Ilaahay samariye iimaan Ilaahay u naxariis nin weyn baa inaga tegey nin weyn baa inaga tegey waa tabin qabriga ha u nuur Ilaahay ha u waasiciyo ha u nuur Ilaahay gidigeenbana eheladiisii iyo innaga iyo qarankaba Ilaahay samiriye iimaan ka siiyo xil badan buu soo gutay oo qaran oo halgan oo xildhibaan isma lahayne intaaba uu soo baxay ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan taxsi qaran u dirayaa qoysaskii iyo shacbiga reer Soomaaliland iyo golayaasha qaranka geeridii ku timi xildhibaan Cabdilaahi Xaaji Dhugad oo ka mid ahaa tiirarka dhaqanka ee Soomaaliland ninka weyn ee naga baxay maanta Ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu dambi dhaaf siiyo naxariistii jannadana geeyo waxaynu shacbiga iyo qoysaskiisa iyo qarankana waxaan dhamaanteen leenahay Ilaahay samiriye iimaan naga siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cabdilaahi Ibraahim Xirsi Dhugad xildhibaankaasi waxa waa xildhibaan weyn wuxuu ka mid ahaa dadkaasta ugu waaweyn ama shakhsiyaadka ugu mudan golaha guurtida wuxuu ku soo jiray tan iyo maalintii la aasaasay golaha koorna wuxuu ka mid ahaa odayaashii iyo dadkii waaweynaa nabaddu ku soo hiratay iyo taariikh maal dahaba ku taalla oo aan la ilaawi karaynin halgankiisii dambe nabadayntiisii dadka isu keenistiisii golaha guurtiga abuuristeedii ilaa Cabdilaahi Dhugad oo ahaa nin weyn oo taariikheed oo geesi qarana oo inaga geeriyooday oo shalayta taariikh nool ahaa maantana aynu meedkiisii halkan ugu ducaynayno aynu ku aasayno buu ahaa shirno halka ugu adag yiraahdaa kullay kaalin weyn baa nagu banaanaatay maanta inkastoo Cabdiwaraabe noo nool yahay wuxuu ahaa nin rusheeg badan marka dadku murmaan midka lagu dhici waaye goluhu ku dhici waaye haday dawlad tahay iyo haday beelays dilay tahayba ku yiraahdaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa samiriye iimaan isagiyo ummadkiisii shacbiga Soomaaliland oo dhan waxaan leenahay samiriye iimaan Allah idinka siiyo maanta halkan waxaan u nimid oo naasayna nin ugu weyn hadii reer Soomaaliland nahay waxa weyn halgankii ka soo qayb qaatay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun